هلا دورت مدحوينها وحي الصومالية حلالها دورتين وانينكا هانتيدا قرنكا يري لما لو سكرو وانينكا دلكا فرقرينتا شيء كدفاعي وانينكا دلكا امانكيسا ilaalinaya warbalninka siyaasiga ee maanta la barbar dhigi kara maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waa kuma madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne jiro joog aad baan ku taageeraa habeenkii lagu doortay aad madaxweynaha ku soo baxdayna madaxweyne saan kugu ordaynaa kabixitaan naga wada go'an bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa warbaahinta kala jecel soo dhaweynta soo dhaweysay iyo raayigay weydiinayshaba magacaygu waa yuusuf maxamed cabdilaahi waxaana la yaqaan ma laygu naanaysaa abu ansuusle inta ay taqaaniyo inta miidiyaha iga aragtay iyo intay maqashayba ninkaasana waxaan u malaynayaa mabda'a la isweydiinayaana waa wax weeyaan xaaladda siyaasadda waddanku meeshuu maraya iyo ugu dambayntii meeshii marisay ugu dambayn khudbaddii madaxweynaha waxaa la jeediyey anigu warkaygu ma labalabaysna horaan uga hadla oo madaxweynaha boqoshadii ugu horreeyey ee qadarku yimi gabayga aan tiriyey ayay ku jirtay mabda'aygu hadba gibisha awr baa sidiyo guubka maatada markaasaa abaargiigata lagaga guuraaye gaydhaalo kacay reerka waa loo gurguriyaayo guddoonshe iyo adaa maxamedow maanta gaandiye garhka qabatay reer geeddii aan guri u oodnayn dadkuna waa u gaajoonayaa godolkii maandeer garabkaaga waa taagana giija amarkaaga weli anigu mabda'aygu ma leexleexsana isagu intuu qabtay iyo in la mida ninkii qabtabana sidaan baanu anagu u taageersanna ninkii beddela isna hadduu ilaahay sii nooleeyo uu xukunka sii hayo inuu sii kordhinayaannu aaminsanay waana meelaannu joognaba waa taageersannahy wakhtiga xukunkooda iyo shaqaduuna soo gaadho caasimadda xamar amarkeeduna soo gaadhana waa la shaqaynayna iminkana halkaasaanoo buuhoodla joogaannu halkaa ka taageersanna dadkana waxaannu leenahay waadi arag baynu nahay meelaynu joognaba dhibaato waadi arag baynu u nahay qalaanqal siyaasadeed oo sheeye iyo afmishaar iyo dib u socodabada ka wadaan oo u shaqaynayaan oo dabka la horordayaan waadi arag baynu nahay iyo jabhada qabiil ku dhisan iyo qabqable ummadda dawlad bay yeelatay ha la taageero ha lala shaqeeyo aad baan idin salaamay anigu waxaan ahay cali faad xasan cawiil oo ra'yigayga waxaan ka hadlayaa khudbaddii madaxweynaha waxaan ka qabo aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa khudbaddii madaxweynahan soo dhawaynayaa horu socodkaan jecelahay doorashada in lagu degdegaan jecelahay sistamkan taageerayaa iyo nidaamka dawladeed ee kala dambaynta leh aad iyo aad baan u taageerayaa waxaa ila qaba wixii wax garanayo oo dhan waa aniga oo ah axmed yuusuf maxamuud oo ku magac dheer ku horeeye kuna sugan magaalada buuhoodle madaxweynuhu wuxuu taageeray shirkii wadatashiga qaranka ee ka socday magaalada muqdisho sidaa daraaddeed annana waa taageeraynaa madaxweynaha soomaaliya ee mustaqbalkuna waxaan leeyahay waa mudane maxamed cabdilaahi maxamed sidaa daraaddeed soomaaliyey madaxweyne aan isaga ahayn oo wakhtiga hadda cidhiidhigaa idinka saari karaa haddee ma jiro halla doorta madaxweynaha wixii soomaaliya ee xalaalaha doorteen waa ninka hantida qaranka yidhi lama lusan karo waa ninka dalka faragelinta sheeye ka difaacay waa ninka dalka ammaankiisa ilaalinaya warbalninka siyaasiga ee maanta la barbar dhigi karaa maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waa kuma haddii anigu ma qabo inuu jiro ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo sidaa daraaddeed waxaan hadalkayga ku soo koobayaa khudbaddii madaxweynaha waan ta'kiidinayaa garabkiisaan taagnahay ha la soo dhoweeyo أول waxaan sameeyay ummadda Soomaaliyeed oo dhan khudbaddii xalay madaxweynaha aad baan u daawanay anagoo dad badan meeshan ku sugnay waxay ahayd khudbad aad u qiimo badan oo qulubta Soomaaliyeed shacabweynaha Soomaaliyeed taabatay oo ay aad la dhaxsanayaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa si habsami leh oo milkiye maamuus leh khudbaddii taariikhiga ahayd ee uu jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo aad baan u soo dhaweynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxayna khudbad taariikhi ah waxaan leenahay kuwa cadowga ku aqranimada Soomaaliya lama cadaalad sacab lama saari karo musharaxa dadku taageersay waa farmaajo la taageersay isagana soo baxaya madaxweynuhu si khudbadiisa aad iyo aad u wanaagsan oo siyaasaysan oo moogtahay hufnaan leh oo aan moogtahay cid xaqaagasho lahayn uu horta uga hadlay
waana taageerayaa sidaa uga hadlay waana soo dhowaynayaa soomaaliya waxay ku socotay godmadow waa ninka keliya ee madaxweynaha moogtahay ama ciidamada dhisay ama dalkasoo wax u qabtay ama badda soo celiyey ama maxaabiis soo daayey ama aynu odhan karno ninkaas waxbuu idiin qabtay oo moogtahay waxbuu idiin qabtay weeye waxaad ku tusaale qaadan kartaa 2018 lacagtii laga qabtay shisheeyaha ee lagu qabtay airboortka muqdisho alaanka akoon waxay ku jirtaa bangiga dawladda lagamana saarin madaxweynayaashii hore sidaan warka ku hayno dee lacagtii soo gashay iyaga akoonkooda ku shuban jiray mana meelle ma ay dhigan jirin dalkana waxa uguma qaban jirin waxaan ugu baaqayaa bulshaweynta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dal iyo dibad war sidii aynu ninka u soo dooran lahayn mar labaad ee aynu soo ceshan lahayn talawa marad garan wadiye maray ku seegtay baa leeyahay inaan garan waayin baan leeyahay talada hadii aan la ka dhigo madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne jiro joog aad baan ku taageeraa habeenkii lagu doortay aad madaxweynaha ku soo baxdayna madaxweyne saanu kugu ordaynaa kabixitaan naga wada go'an soo noqon ku leenahay